السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله ku soo dhawaada barnaamijkan aan ugu talagalay dadka raba inay qaataan citizenka ama shahaadada dhalashada waddanka Mareykanka. Su'aalahan waa su'aalihii ugu dambeeyay ee 128 ka kooban ee sanadka cusub 2021ka. Marka soo dhawaada haddii aad rabto ama aad raba raadinaya u sheeg information marka hore waxaan u diyaariyay xaaskayga ayaan ugu talagalay markaan u diyaariyeen ayaa waxaan isla la qaybso dadka kalena la wadaag marka aan bilowno horaan u bilowno. American government. What is the form of government of the United States? maxay tahay dowlad qaabeedka dowlad nooca weeye dowladda Mareykanka? Republic. Constitution based federal republic waa dowlad federaal ka kooban dowlad federaal oo republic haddana ah. What is the supreme law of the land? sharciga waddanka Mareykanka ugu sarreeya muxuu yahay? US Constitution dastuurka Mareykanka. Name one thing the US Constitution does. dastuurka Mareykanka hal wax uu sameeyo sheeg. Forms the government. Defines powers of government. wuxuu abaabulaa dowladda ama wuxuu qeexaa dowladda. The US Constitution starts with the words we the people. What does we the people mean? dastuurka Mareykanka wuxuu ku bilowdaa ereyada ka ah we the people haddii aan nahay dadka maxay macnaheedu tahay? Self government. Ismaamul. Popular sovereignty. madax bannaani guud ama madax bannaani shacab. Consent of the governed. dadka la maamulayo oo laga haysto raalli ahaansho laga haysto. How are changes made to the US Constitution? qaabkee wax looga bedelaa dastuurka Mareykanka? Amendments. The amendment process. Amendments ama in wax lagu daro dastuurka ama wax laga jaro ayaa amendments la dhahaa. What does the Bill of Rights protect? Bill of Rights ama biilka oo xuquuquhu ku qoran yihiin muxuu ka taxadiraa muxuu ilaaliyaa? The basic rights of Americans. The basic rights of people living in the United States. wuxuu ilaaliyaa the basic rights of the American. xuquuqaha asaasiga ee Amerikaanka ama xuquuqaha asaasiga dadka ku nool Mareykanka. How many amendments does the US Constitution have? imise amendment ayuu dastuurka Mareykanka ku leeyahay? 27. Why is the Declaration of Independence important? maxay ku dhawaaqida xornimada maxay muhiimadda ay leedahay maxay tahay? It says America is free from British control. waxay tiri ama dokumentiga waxaa ku qoran inuu Mareykanku xor ka yahay Ingiriiska. It says all people are created equal. waxaa kaloo yidhi bini'aadamka dhan dadka dhan isku meel baa laga abuuray. What founding document said the American colonies were free from Britain? dokumentiga oo bilowga ama warqadee bilowga ahaa ee tiri oo kuwii hore ah oo sheegtay inay dadkii hore goboladan qaybtoodii hore Mareykanka inay ka madax bannaan yihiin Ingiriiska. Declaration of Independence ku dhawaaqidii xornimada dokumentigaas ayaa qeexaya. Name two important ideas from the Declaration of Independence and the US Constitution. waxaad sheegtaa labo qodob ama labo fikradood oo muhiim ah oo ku dhawaaqidii xorriyadda iyo dastuurka Mareykanka. laba ka mid ah sheeg muhiim. Equality sinaan. Liberty xorriyad. Social contract iyo heshiis bulsho iyo xuquuqaha asaasiga. The words life, liberty and the pursuit of happiness are in what founding document? ereyada nolol, xorriyad iyo farxad raadis dokumentiyada hore kay ku jiraan
ama dokumentiyadii waddanka lagu bilaabay. Declaration of Independence ku dhawaaqidii xorriyadda. What is the economic system of the United States? Economic ama dhaqaalaha siyaasadda dhaqaalaha ee Mareykanku maxay tahay? Noocee weeye? Capitalism waa capitalism waxa loo yaqaan. Free market economy ama suuq xor ah, suuqa xorka. What is the rule of law? Muxuu yahay sharciga oo loo hoggaansamo? Everyone must follow the law. Ruux walba waa inuu sharciga raaco. Leaders must follow the law. Hogaamiyaashu waa inay sharciga raacaan. Government must obey the law. Dowladda naftirkeedu waa inay sharciga raacdo. No one is above the law. Ruux ka sarreeya sharciga ma leh. Many documents influence the US Constitution. Name one. Dokumentiyo badan ayaa saameyn badan ku yeeshay dastuurka Mareykanka. Mid ka mid ah sheeg. Declaration of Independence ku dhawaaqida xorriyadda. Articles of Confederation isu tagii dadkii warqadihii ka soo baxay Confederationkii ama Federalist Papers ama warqadihii loo yaqaanay Federalist dadkii federaalka raadiska ayaa waxay ku lahaa muhiimad badan. There are 3 branches of government. Why? 3 qaybood ayay dowladdu ka kooban tahay. Why? Sabab. So one part does not become too powerful. Qayb ka mid ah inayna awood badan yeelanin. Checks and balances isu dheelitir. Separation of powers iyo awoodaha la kala duwan. System of government. Name the 3 branches of government. Waxaad sheegtaa 3 qaybood dowladda Mareykanka ka kooban tahay. Legislative, executive and judicial. Legislative waa sharci dejintii. Executive waa qaybta madaxweynaha iyo and judicial iyo maxkamadihi. Ama haddii kale si kale loo dhigo waa Congress-ka, madaxweynaha iyo maxkamadaha. The President of the United States is in charge of which branch of government? Qaybta dowladda ee madaxweynuhu uu si toos ah u hoos yimaado waa qaybta executive branch. Qaybta madaxweynaha, qaybta fulinta. What part of the federal government writes laws? Qaybtee dowladda federaalka ah ee sharciyada dejisa. US Congress waa Congress-ka. US or National Legislature ama sharci dejiyaasha qaranka ama qaybta sharci dejiyaanta. What are the 2 parts of the US Congress? Labada qaybood ee US Congress ka kooban yahay waa maxay? Senate and House of Representatives. Aqalka kore ee Senate-ka iyo aqalka hoose ee Representatives. Name one power of the US Congress. Hal awoodo Congress-ka Mareykanka uu leeyahay sheeg. Writes laws. Sharciyada inuu qoro. Declares wars. Inuu dagaal oogo. Makes the federal budget. Dhaqaalaha inuu ansixiyo ama soo saaro dhaqaalaha. How many US senators are there? Imisa senator ayaa jira? 100 boqol. How long is a term for a US senator? Imisa sano ayuu xilka haynayaa senatorka ruuxi senator? 6 years. 6 sano. Who is one of your state's US senators now? Mid ka mid ah sheeg gobolkaada aad joogto senataradooda mid ka mid ah. Answers will vary. Su-aashu way kala duwanaan doontaa. Wax walba gobolka ku nool yahay ayay ku xidhan tahay. District of Columbia resident ruux. How many voting members are in the House of Representatives? Imisa xubnood ayuu ka kooban yahay aqalka hoose ee sharci dejinta? 435. 435. How long is a term for a member of the House of Representatives? Imisa sano ayaa aqalka hoose ruux ku jira? Imisa sano ayuu xilka haynayaa? 2 years. 2 sano. Why do US representatives serve shorter terms than US senators? Sababtu maxay tahay ay aqalka hoose dadka ku jira ay 2 sano kaliya u tahay ooga senatarada ooga waqti yar yihiin? To more closely follow public opinion. Inay aad la socdaan xaaladda dadweynaha ayaga inay mar walba la bedelo 2 sano mar aad la socdaan. How many senators does each state have? Imisa senator ayuu gobol walba leeyahay? 2.
Why does each state have 2 senators? Sababta maxay tahay gobol walba 2 senator uu leeyahay. Equal representation for small states. Gobolada yaryar inay xuquuq la siman helaan gobolada kale. Name your US representative. Gobolka aad degan tahay representative-ka aqalka hoose dadka kugu jira sheeg. Answer will vary. Jawaabuhu way kala duwanaan karaan. What's the name of the Speaker of the House of Representatives now? Aqalka dadweynaha ee hoose aqalka hoose afhayeenka aqalka hoose waa ayo. Nancy Pelosi. Who does a US senator represent? Qofka senatorka ah ee Mareykanka ah yuu mathalaa. Citizen of the state. Gobolka kasoo jeedaan dadweynaha ku nool bay mathalaan. Who elects US senators? Yaa u codeeya senatorada yaa u codeeya. Citizen from the state. Ruux walba state-ku ka imaaday dadka degan ayaa u codeeya. Who does a member of the House of Representative represent? Aqalka hoose dadka ku jira ama ruuxii ku jira representative yuu mathalaa. Citizen in their congressional district. Degmada laga soo doorto dadka ku nool ayuu mathalaa. Who elects members of the US of the House of Representative? Who elects members of the House of Representative? Yaa u codeeya dadka loo doorto aqalka hoose ee dejinta. Citizen from the congressional district. Degmada ay ka imaadeen dadka ku nool ayaa u codeeya citizen ku nool shacabka ku nool. Some states have more representatives than other states. Why? Gobolada qaar mathalaad ka badan bay ku leeyihiin aqalka hoose. Sababtu maxay tahay? Because of the state's population. Sababtu waxa weeye populationka ama dadka ku nool faraheeda. The President of the United States is elected for how many years? Madaxweynaha imisa sano ayaa la doortaa? 4 years, 4 sano. The President of the United States can serve only 2 terms. Why? Madaxweynaha Mareykanka 2 xilli doorasho ama 2 jeer baa la dooran karaa. Sababtu maxay tahay? Because of the 22nd Amendment. Sharciga ama amendment-ka 22aad ayaa saadhiga ka soo horjeeda. To keep the president from becoming too powerful ama waxaa loo xadiday in uuna madaxweynuhu awood badan yeelanin. What is the name of the President of the United States now? Madaxweynaha Mareykanka ee hadda waa kuma? Joe Biden. What is the name of the Vice President of the United States now? Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka waa kuma? Kamala Harris. If the president can no longer serve, who becomes president? Madaxweynuhu hadduuna xilka sii hayn karin yaa la wareegaya awoodii yaa bedelaya. The Vice President of the United States. Madaxweyne ku-xigeenka ayaa xilka la wareegaya. Name one power of the president. Hal awood oo madaxweynuhu leeyahay magacaabo sheeg. Sign bills into law. Sharciyada ayuu hirgeliyaa. Veto bills. Sharciyada ayuu veto saaraa. Enforce laws. Sharciyada ayuu meel mariyaa. Commander in Chief of the Military. Waxaa weeye hogaamiyaha koowaad ee militariga. Who is Commander in Chief of the US Military? Waa ayo hogaamiyaha koowaad ee militariga Mareykanka. The President of the United States. Madaxweynaha Mareykanka. Who signs bills to become laws? yaa meel mariya sharciyada yaa meel mariya sharciyada oo inay sharci noqdaan yaa biilasha ama markii biilo la soo maray yaa sharci u bedela oo madaxweyne. The President of the United States. Madaxweynaha ayaa saxiixa markaasay sharci noqonayaan. Who vetoes bills? Yaa vetoes biilasha ama hindisiyaasha sharciga yaa vetoes saara.
The President of the United States madaxweynaha Mareykanka ayaa veto hindisayaasha sharciga ama sharci ka dhiga ama veto saar. Who appoints federal judges? Yaa magacaaba qaadiyada ama maxkamadaha sare yaa u magacaaba dadka. The President of the United States madaxweynaha Mareykanka ayaa u magacaaba. The executive branch has many parts. Name one. Executive branch ama qaybta madaxweynaha toos u hoos timaada qaybo badan bay leedahay. Hal ka mid ah sheeg. President of the United States waa madaxweynaha, cabinet iyo wasiirada. What does the president's cabinet do? Madaxweynaha cabinetkiisa ama wasiiradiisu maxay qabtaan? Advise the president of the United States. Way la taliyaan. What are two cabinet level positions? Laba cabinet ama laba wasiir sheeg oo positionkood magacooda. Waxaa weeye Attorney General, qareenka guud iyo Secretary of Agriculture, wasiirka agricultureka ama wasiirka commerce ama wasiirka difaaca. Why is the electoral college important? Electoral college-ka waxaa loo yaqaano muhiimadda uu leeyahay maxay tahay? It decides who is elected president. Waxay go'aamisaa ruuxii loo doortay madaxweynenimada. It provides a compromise between the popular election of the president and the congressional selection. Waxay u dhaxaysaa dhexdhexaad u tahay ama codka guud ee bulshada iyo congresska iyo selectionka ay sameeyaan ayay dhexdhexaad u tahay. What is one part of the judicial branch? Hal qayb oo ka mid ah maxkamadaha sheeg. Supreme Court maxkamadda sare. Federal courts maxkamadaha federaalka. What does the judicial branch do? Qaybaha maxkamadaha maxay qabtaan? Review laws sharciyada ayay dib u eegis ku sameeyaan. Explain laws sharciyada ayay sharxaan. Resolve disputes, disagreements about the law khilaafaadka u dhexeeya ayay xaliyaan dadka Congress-ka iyo madaxweynaha. What is the highest court in the United States? Maxkamadda u sarreysa waa tee? Supreme Court maxkamadda sare. How many seats are on the Supreme Court? Maxkamadda sare imise kursi ayay leedahay? Imise kursi ayaa laga qabtaa? 9 kursi. How many Supreme Court justices are usually needed to decide a case? Imise qaadi ama imise justice ayaa loo baahan yahay inay case u codeeyaan majority-ga ama si ay u noqdaan? 5. How long do Supreme Court justices serve? Imise sano ayay qaadiyaal maxkamadda sare xilka hayaan? For life noloshooda. Life appointment waa nolol inta noloshooda ka dhiman baa loo magacaaba. Until retirement ilaa ay ka retirement ka qaadanayaan. Supreme Court justice serve for life. Why? Maxkamadda sare qaadiyada ku jira nolosha inay maxkamadda fadhiyaan maxay tahay sababta ka dambeysa? To be independent of politics inay ka madax bannaanaan siyaasadda. To limit outside political influence in la xadido bedelada outside-ka influence uga imaanaya in la yareeyo. Who is the Chief Justice of the United States now? Justice-ka chiefka ugu sarreeya ama maxkamadda sare ruuxa ugu sarreeya waa kuma? John Roberts. Name one power that is only for the federal government. Hal awood oo dowladda federaalka iska leedahay keligeed sheeg. Print paper money inay lacagta soo saarto. Mint coins inay lacagta birta soo daabaco. Declare war dagaal inay oogto. Create an army ciidamo inay abaabusho. Make treaties inay heshiisyo gasho. Name one power that is only for the states. Hal awood oo gobollada iska leeyihiin sheeg. Provide schooling and education. Iskuulada iyo waxbarashada inay ayagu maamulaan. Provide protection inay dadka protection police inay sameeyaan dadka ay safety-gooda ilaaliyaan.
What is the purpose of the 10th Amendment? Amendment-ga tobnaad maxay tahay ulajeedadu? It states that the powers not given to the federal government belong to the states or to the people. Waxay sheegaysaa awoodii aan si toosa loo siinin dowladda dhexe inay ama gobolladu iska leeyihiin ama dadka shacabka iska leeyahay. Who is the governor of your state now? Waa iyo shakhsiga gobolka aad joogto governatorka ka ah. Su'aaluhu way kala duwanaan doonaan. Answer will vary. Su'aalo gobolka aad joogto ayay ku xidhan tahay. Minnesota haddaad joogto xilligan Tim Walz baa ah. What is the capital of your state? Caasimadda gobolka aad joogto maxay tahay? Answer will vary. Way kala duwanaan doonaan su'aalaha gobolka aad joogto ku xidhan tahay. It depends the state you live in. Gobolka aad joogto ayay ku xidhan tahay. Minnesota haddaad joogto St. Paul. Rights and responsibility, xuquuqaha iyo maaragtay. There are 4 amendments to the US Constitution about who can vote. Describe one of them. Afar amendment ayaa ku saabsan xuquuqaha codaynta ee Mareykanka, dadka Mareykanka. Hal mid ka mid ah sheeg. Citizens 18 and older can vote. Ruuxa 18 ka ah oo citizen oo 18 ah 18 jir ah iyo ka weyn inay codayn karaan. You don't have to pay a poll tax to vote. Marka aad codaynayso inaad bixinin wax lacag ah. Who can vote in federal elections, run for federal office and serve on a jury in the United States? Yaa u ordi kara doorasho, yaa codayn kara doorasho federaalka ah ama xafiis federaal yaa u tartami kara ama juuriga yaa noqon kara United Stateska. Citizen, qofka citizen of the United States ama ruux citizen Mareykanka, ruuxi dhalasho ka haysta Mareykanka. What are 3 rights of everyone living in the United States? 3 xuquuq oo qof walba, shakhsi walba oo Mareykanka ku nool uu leeyahay. Freedom of expression, xorriyadda expressionka dadku ay isku sharxi karaan, ay nolosha isku tilmaami karaan. Freedom of speech, xorriyatul qowlka. Freedom of assembly, xorriyadda isu imaadka. What do we show loyal to when we say the Pledge of Allegiance? Yaa markii Pledge of Allegiance markii la qaadayo yaa daacad loo noqonaya, yaa daacad iskaga dhigaya. The United States, Mareykanka, dowladda Mareykanka. The flag ama calanka. Name 2 promises that the new citizens make in the oath of allegiance. 2 ballan oo ay qaadaan dadka markay cusub yihiin ay dhalashada qaadanayaan. Give up loyalty to other countries. Inay iska daayaan ama ay joojiyaan daacadnimadii wadamada kale u ahaayeen. Defend the US Constitution. Inay difaacaan dastuurka Mareykanka. How can people become United States citizen? Sidee bay dhalasho ku qaadan karaan dadka? Inay naturalize noqdaan oo dhowr sano markay joogaan kadib. Iyo inay be born in the United States ama inay ku dhashaan Mareykanka ama inay intay process maraan buuxiyaan. What are 2 examples of civic participation in the United States? Ka qayb qaadashada bulshada maxay tahay Mareykanka? Vote, inaad codayso. Run for office, inaad xafiis u tartanto. Join a political party, inaad xisbi ku biirto. What is one way Americans can serve their country? Hal siyaabo, hal dhinac ama hal jid oo dadka Amerikaanka ay wadankooda wax ugu qaban karaan maxay tahay? Vote, inay codayaan. Pay taxes, inay taxeska bixiyaan. Obey the law, inay sharciga u hoggaansamaan. Serve in the military, inay ciidamada ku biiraan. What is important to pay federal? Why is it important
to pay federal taxes muhiimadda ay leedahay in federal taxeska la bixiyo maxay tahay required by the law sharciga ayaa dhigaya all people pay to fund the federal government dadka dhan waxay kharash gareeyaan dowladda dhexe required by the US Constitution 16 amendment ama dastuurka qaybtiisa 16aad ayaa sheegaysa it is important for all men aged 18 through 25 to register for the selective service name one reason why ragga u dhaxeeya muhiimadda ay leedahay ragga u dhaxeeya 18 ilaa 25 inay isdiiwaangeliyaan selective service hay'adda loo yaqaano maxay tahay sababta required by the law sharciga ayaa dhigaya civic duty waa arrin shacabka looga baahan yahay wadaninimo maxwell draft fair if needed in ciidamada hadii loo baahdo qasab in lagu qoro in ruux walba uu sinnaado American history taariikhda Mareykanka American colonial period qaybtii hore the colonists came to the America for money reasons name one dadkii u horreeyay ee colonists loo yaqaanay sababahay u imaadeen mid ka mid ah sheeg freedom xorriyad political liberty siyaasad madax banaani siyaasad religious freedom xuquuqda diinka freedom inay helaan iyo dhaqaale who lived in the America before the Europeans arrived yaa ku noolaa Mareykanka intayna Europeanku imaan American Indians Native Americans dadkii native-ka loo yaqaanay dadkii Indianka ayaa ku noolaa what group of people was taken and sold as slaves groupka dadka la soo afduubay oo adoonsi la adoonsaday Africans dadka Africanka people from Africa ama dadka Africa soo jeeday what war did the American fight to win independence from Britain dagaalkii ay Mareykanku dadka Amerikaanka qaadeen ay la galeen Ingiriiska dagaalkii ahaa American Revolution kacdoonkii Mareykanka American Revolution War ama kacdoonkii Mareykanka dagaalkii kacdoonka Mareykanka name one reason why the Americans declared independence from Britain hal sabab oo ku qasabtay inay Mareykanku dadka Amerikaanka ay ka goostaan Ingiriiska sheeg high taxes canshuurta aad u badnayd taxation without representation tax baa laga qaadi jiray wax matalaadana kuma lahayn maamulka who wrote the Declaration of Independence yaa qoray ku dhawaaqida xornimada warqadihii ku dhawaaqida xornimada Thomas Jefferson ninka la dhahayo qoray when was the Declaration of Independence adopted goorma ayaa la meel mariyay xuquuqdii ee warqadihii dhawaaqida xorriyadda ku dhawaaqida xorriyadda July 4 1776 bisha toddobaad afarteedii 1776 The American Revolution had many important events name one dagaalka dagaalka ee xorriyadoonka Mareykanka arrimo badan oo muhiim ah ku jiray mid ka mid ah sheeg Battle of Bunker Hill dagaalkii Bunker Hill ka dhacay meesha la dhahayo Declaration of Independence ku dhawaaqidii xornimada Washington crossing the Delaware Battle of Trenton Washington gudubkii uu ka gudbay webiga Delaware iyo dagaalkii Trenton Battle of Saratoga dagaalkii Saratoga meesha la ka dhacay Valley Forge encampment degitaankii iyo meesha ay degeen there were 13 original states name 5 13 gobol ee u horreeyay mid 13 bay ahaayeen mid 5 ka mid ah sheeg New Hampshire New York New Jersey North Carolina South Carolina what founding document was written in 1787 dukumeentiyadii u horreeyay ee bilowgii aasaaska ah ee la qoray 1782 sheeg US Constitution dastuurka Mareykanka The Federalist Papers supported the
passage of the US Constitution. Name one of the writers. Federalist Papers warqadihii federaalka dadka federalistska ay qoreen wuxuu taageeray meelmarinta dastuurka Mareykanka. Name one of the writers. Mid ka mid ah qorayadii. James Madison, ninka la jiray. Alexander Hamilton. Why were the Federalist Papers important? warqadihii loo yaqaanay Federalist Papers maxay muhiim u ahaayeen? They help people understand the US Constitution. Waxay ka caawisay bulshada inay fahmaan dastuurka Mareykanka. They supported the passing the US Constitution. Waxay kaloo taageereen meelmarintii dastuurka Mareykanka. Benjamin Franklin is famous for many things. Name one. ninka la dhahayo Benjamin Franklin wuxuu caan ku ahaa dhowr waxyaabood. Mid ka mid ah sheeg. Founded the first free public libraries. wuxuu aasaasay librariyadii u horreeyay oo free ah. First Postmaster General of the United States. George Washington is famous for many things. Name one. George Washington waxyaalo badan baan ku yahay. Mid ka mid ah sheeg. Father of our country. aabihii Mareykanka. First President of the United States. madaxweynihii u horreeyay ee Mareykanka. General of the Constitutional Army. Thomas Jefferson is famous for many things. Name one. Thomas Jefferson ninka la dhahayo waxyaalo badan baan ku yahay. Mid ka mid ah sheeg. Writer of the Declaration of Independence. waa qoraagii wuxuu ahaa ku dhawaaqida xorriyadda. qoraalkeedii waxaa warqadihii. Third President of the United States. madaxweynihii saddexaad ee Mareykanka. James Madison is famous for many things. Name one. ninka James Madison la dhahayo waxyaalo badan baan ku yahay. Mid ka mid ah sheeg. Father of the Constitution. aabihii dastuurka. Fourth President of the United States. madaxweynihii afraad ee Mareykanka. Alexander Hamilton is famous for many things. Name one. Alexander Hamilton ninka la dhahayo waxyaalo badan baan ku yahay. Mid ka mid ah sheeg. First Secretary of Treasury. hogaamiyihii secretarygii ama wasiirkii u horreeyay ee Treasury ama hay'adda dhaqaalaha. One of the writers of the Federalist Papers. mid ka mid ah qoraaladii dadka qoray Federalist Paperka. 1800. What territory did the United States buy from France in 1803? dhulkee ayuu ahaa dhulka ay Mareykanku uu ka gatay Faransiiska 1803. Louisiana Territory. Louisiana dhulka loo yaqaano Louisiana Territory. Name one war fought by the United States in the 1800s. hal dagaal oo Mareykanku u dagaalamay sheeg 1800. War of Eight. dagaalkii 1812. Mexican American War. dagaalkii Mexico iyo America. Civil War. dagaalkii sokeeye. Spanish American War. dagaalkii America iyo Spanishka. Name the US war between the North and South. dagaalkii u dhaxeeyay waqooyiga iyo koonfurta sheeg. Civil War. dagaalkii sokeeye. The Civil War had many important events. Name one. dagaalkii sokeeye arrimo muhiim ah ku jiray ama dhacdooyin muhiim ah sheeg. mid ka mid ah. Battle of Fort Sumter. dagaalkii ka dhacay Fort Sumter meesha la dhahay. Emancipation Proclamation. ku dhawaaqidii lagu dhawaaqay xorriyadda dadka adoonsiga lagu xoreeyay. Battle of Vicksburg. dagaalkii ka dhacay Vicksburg. Battle of Gettysburg. dagaalkii ka dhacay Gettysburg meesha la dhahay. Abraham Lincoln is famous for many things. Name one. Abraham Lincoln ninka la dhahayo waxyaalo badan baan ku yahay. mid ka mid ah sheeg. Freed the slaves. wuxuu sii daayay oo xoreeyay dadkii adoonsiga loo haystay. Saved or preserved the Union. wuxuu kaloo badbaadiyay isku haynta Mareykanka inayna kala go'in. 16 President of the United States. madaxweynihii 16aad ee Mareykanka. What did the Emancipation Proclamation do? Emancipation Proclamation waxaa la dhahayo ku dhawaaqidii xoreynta maxay qabatay? Freed the slaves. waxay dadkii adoonsiga ayay xoreysay. What US war
ended slavery dagaalkee dhameeyay adoonsigii Mareykanka ka jiray. Civil War dagaalka sokeeye. What amendment gives citizenship to all persons born in the United States? Amendmentiga qaybta ka mid ah dhibicda ka mid ah dastuurka Mareykanka ee ruuxii ku dhashay Mareykanka citizen siinaysa waatee. 14 amendment. Amendmentiga 14aad. When did all men get the right to vote? Ragga dhan goorma ayay heleen xuquuqda lagu codeeyo. After the Civil War dagaalka sokeeye kadib. During the Reconstruction dib u dhiskii xilligeedii. Name one leader of the women's right movement in the 1800s. Hal haweeney oo ka mid ah sheeg kuwii u doodayay xuquuqda dumarka 1800kii. Susan B. Anthony haweeneyda la dhahay. Recent American history and other important historical information. Taariikhda soke ee dhow ee Mareykanka hadda. Name one war fought by the United States in the 1900s. Hal dagaal oo Mareykanku ka qayb qaatay sheeg 1900kii iyo wixii ka soo dambeeyay. World War I dagaalkii koowaad adduunka. World War II dagaalkii labaad adduunka. Korean War dagaalkii Korea. Vietnam War dagaalkii Vietnam. Persian Gulf War iyo dagaalkii Bariga Dhexe. Why did the United States enter World War I? Dagaalkii koowaad adduunka Mareykanku muxuu u galay? Because Germany attacked US civilian ships. Jarmanka ayaa wuxuu weeraray doomo dad shacabiyada Mareykan. When did all women get the right to vote? Haweenka dhan dumarka goormay heleen xuquuqda ay ku codeeyaan. 1920 after World War I dagaalkii labaad dagaalkii koowaad adduunka kadib. With the 19 amendment iyo amendmentiga 19aad markii la ansixiyay kadib. What was the Great Depression? And depressionkii weynayd maxay ahayd depressionkii weynayd. Longest economic recession in modern history. Waxay ahayd dhaqaale xumidii ugu darnayd ee xilligan dambe casriga Mareykanka soo martay. When did the Great Depression start? Goorma ayay bilaabatay depressionkii weynaa ama dhaqaale xumidii weynayd goorma ay bilaabatay. The Great Crash 1929. Burburkii weynaa ee 1929kii. Stock market crash of 1929 iyo suuqa wax kala beddelka ganacsiga dhacitaanku dhacay hoos u dhacay ku yimid 1929kii. Who was president during the Great Depression and World War II? yaa ahaa xilligii weynaa ee dhaqaale xumida ba'an dhacday ee loo yaqaan Great Depression iyo dagaalkii labaad ee adduunka ayaa madaxweynaha Franklin Roosevelt ayaa madaxweynaha ninka la dhahay. Why did the United States enter World War II? Dagaalkii labaad ee adduunka dowladda Mareykanka waxay u gashay. Bombing of Pearl Harbor. Bombingkii ama duqeyntii la duqeeyay Pearl Harbor meesha loo yaqaano. Japanese attacked Pearl Harbor ama Japanese ayaa wuxuu weeraray Pearl Harbor meesha loo yaqaano dekedda loo yaqaano. Dwight Eisenhower is famous for many things. Name one. Dwight Eisenhower ninka loo yaqaano waxyaalo badan caan ku ah mid ka mid ah sheeg. General during World War II wuxuu ahaa general buu ahaa xilligii dagaalka labaad adduunka. President at the end of during the Korean War. Madaxweynihii wuxuu ahaa Korean War dhamaadkiisa ayuu madaxweynaha 34th President of the United States. Madaxweynihii 34aad buu ahaa. Who was the United States main rival during the Cold War? Dagaalkii qaboobaa yaa ka soo horjeeday Mareykanka. Soviet Union midowgii Soviyetka. USSR Russia iyo Ruushka. Dagaalkiisa. During the Cold War, what was one main concern of the United States? Dagaalkii qaboobaa hal wax oo Mareykanku aad uga walaacsanaa muxuu ahaa. Communism shuuciyad. Nuclear war iyo dagaal nuclear. Why did the United States enter the Korean War? Dagaalka Korea Mareykanku muxuu u galay. To stop the spread of communism fiditaanka shuuciyadda inuu ka hortago.
Why did the United States enter the Vietnam War? Dagaalka Vietnam Mareykanku muxuu u galay? To stop the spread of communism. Shuuciyadda inuu ka hortago ama joojiyo ayuu u galay. What did the civil rights movement do? Xuquuqda civil rights wax loo yaqaanay ama olayaasha xuquuqda bini'aadamka maxay qabteen? Fought to end racial discrimination. Waxay u dagaalameen inay dhameeyaan midab kala sooca. Martin Luther King Jr. is famous for many things. Name one. Martin Luther King ninka la dhahayo Jr. muxuu caan ku ahaa waxyaalo badan baa caan ku ah mid ka mid ah sheeg. Fought for civil rights. Xuquuqda sinaanta ama xuquuqda asaasiga dadka inuu u doodo. Work for equality for all Americans. Inuu u doodo xuquuqda dhan ee Mareykanka dadka awoodooda aan xuquuq lahayn. Why did the United States enter the Persian Gulf War? Dagaalkii Golfka ama dagaalkii Bariga Dhexe Mareykanku muxuu u galay? To force the Iraqi military from Kuwait. Militariga Iraq inuu ka saaro wadanka Kuwait. What major event happened on September 11, 2001 in the United States? Arrintii weyneyd ee dhacday maxay ahayd? Bishii 9aad September 11 2001 bishii arrintii weyneyd ee Mareykanka ka dhacday maxay ahayd? Terrorists attacked the United States. Argagixiso ayaa waxay weerareen Mareykanka. Terrorists took over 2 planes and crashed them into the World Trade Center in New York City. Dad ismiidaaminaya oo terrorist ayaa waxay weerareen 2 diyaaradood qaateen ku weeraray xarumihii labada xarumood ee loo yaqaanay World Trade Center ee ku yaala New York. Name one US military conflict after the September 11, 2001 attacks. Waxaad sheegtaa hal dagaal oo ka dambeeyay September 11, 2001 oo Mareykanku ka qayb qaatay. Global War on Terror. Dagaalkii argagixisada caalamiga ah. War in Afghanistan. Dagaalkii Afghanistan. War in Iraq. Dagaalkii Iraq. Name one American Indian tribe in the United States. Hal qabiil oo ka mid ah dadkii asalka ahaa ee loogu imaaday wadankan. Hal qabiil oo ka mid ah sheeg. Cherokee, Cheyenne, Chippewa, Lakota, Dakota, Mohawk, Sioux. Name one example of an American invention. Hal wax oo wuxuu Mareykan hal example ama hal tusaale oo dadka Mareykanka waxyaalaha casriga ay soo saareen mid ka mid ah sheeg. Light bulb, nalka guluubka nalka. Automobile, gaariyaasha cars. Internal combustion engine ama engine gaariyaasha ku socdaan. Skyscrapers, bildimada dhaadheer, dabaqada dhaadheer. Airplane, diyaarad. Assembly line, lineka warshadaha ay ku shaqeeyaan assembly lineka loo yaqaanay wax soo saarka badan. Landing on the moon, ku degii moonka ee dayaxa lagu degay. Integrated circus ama symbols and holidays, calaamadaha iyo taariikh holidayda maalmaha fasaxa. Symbols, calaamadaha. What is the capital of the United States? Caasimadda wadanka Mareykanka maxay tahay? Washington DC. Where is the Statue of Liberty? Statue of Liberty xagee ku taallaa? New York Harbor. xeebta New York. Liberty Island ama jasiiradda islandka Liberty Island loo yaqaan. Why does the flag have 13 stripes? Calanka muxuu 13 xariiqimood u leeyahay calanka? 13 dilim ama xariiqin muxuu u leeyahay? Because there were 13 original colonies. Waxaa jiray 13 gobol baa asal ku bilowday Mareykanka. 3 gobol ka matalaya. Why does the flag have 50 stars? Sababta maxay tahay uu leeyahay calanka Mareykanka 50 xidigood? Because there is 1 star for each state. Gobol walba hal xidig ayaa matalaysa. What is the name of the national anthem? Heesta qaranka magaceed. The Star Spangled Banner. The Star Spangled Banner. The nation's first motto was E pluribus unum. What does it mean? Hal qabsigii ugu horreeyay ee qaranka wuxuu ahaa
plurious unum wadaas maxay la mid tahay macnaheed out of money one out of money dad badan ayaa waxa ka soo baxay hal ama ummado badan oo isu imaaday ayaa hal wadan ka soo baxay we all became one hal baan noqonay dhammaanteen waxaan noqonay mid holidays fasaxyada what is Independence Day maxay tahay maalinta xorriyadda a holiday to celebrate US independence from Britain waa dabaaldeg loo dabaaldego ka xorowgii Mareykanka ka xoroobay Ingiriiska the country's birthday dhalashadii wadanka name three national US holidays saddex feesto oo ama maalmooda fasaxa oo loo dabaaldego sheeg New Year's Day maalinka New Year's sanadka bilowgiisa Martin Luther King Jr. Day maalinkiisa President Day maalinka madaxweynenimada Washington's birthday uu dhashay Memorial Day maalinka xasuusta Independence Day maalinka xorriyadda Labor Day maalinta shaqaalaha Thanksgiving Day maalintii Thanksgiving what is Memorial Day maxay tahay maalinka xasuusta a holiday to honor soldiers who died in military service waa maalinkii la xusayay ciidamadii ku dhamaaday ayagoo military ku jira what is Veterans Day maxay tahay maalinka veteranska loo yaqaan maalinka maxaa la xusaa a holiday to honor people in the United States military ciidamada dadka ku jira maalin la xasuusto wey thanks for watching please support this channel